xaflad si heer loo soo agaasima ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee dugsiga xanaanada carruurta Riyaal Saalixiin ee degmada Darkeenley. xafladan qalinjabinta ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka macallimiinta, waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale. ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda dhigata dugsiga xanaanada carruurta Riyaal Saalixiin, isagoo sheegay in ardaydan carruurtiisa ah uu ka keenay dalka dibadiisa isla markaana uu door biday in uu ku soo cesho dhulkoodii hooyo si ay u bartaan xifdinta Quraanka Kariimka iyo tarbiyada diiniga ah. والله جسم مركز ورثنا يعني المال قبل الموضوع كعيد يسوي حكينا وطن كان ما تبحثنا جبتي سأل ولمن ما حكينا وطن كان كنا وطن مسلمين حكينا مسلمنا أنا أوكي وحنا كسوة وطن كإسلام كأني كهلا سومالي وطن الإسلام كمثال طبعا لكن وحبات ديرنا أنا أوجين جماعة هاي ستان هذا هذا سومالي أنا بو ماشي أنا كل شيء مدينة كوكوري لكن سدير لا تسمع وطن كمغنى جبتي سكو مغنى أنا ضد سالس عتان ونص جودهم بربره كلام بربره ودمي تذكر وحنا نقولين خارج عي أو نفق ما لا تحصري أو سير مال كلام عين كذا sidoo kale halkaas waxaa ka hadlay mas'uul ka socday jaamacadda islaamiga ah farciida degmada Darkeenley. dadku hadii waxaan ku leedahay qaar danahooda gaarka iyo howlahooda nolol maalmeedka ku mashquulsan yihiin ay jiraan dad kale oo ku mashquulsan Ilaahay tabaaraka wa taala inay baraan jiilka soo kubcay oo soo socda diintoodiina waxaan ku leedahay maarifay u yeeshaan waxaan sameeyahay markii daartani ama waxaan ku leedahay rawdadani la furayay dabcan dadkii joogay ayaa ka mid ahaa aad u wasiifogeen laakiin se hadda waxaad moodaa thimaar inay ka soo baxday ilmo waaga ayaga aan sida wax loo qoray iyo waxa loo aqriyay iyo maxaa la yiraahdaa aan ogeyn hadda inay barteen ay soo gudbinayaan maxaa la yiraahdaa waxyaabihii arkaantii islaamka iyo quraanka iyo ahkaamtiisa iyo culumtiisa waa wax lagu farxo aad iyo aad ayaan maxaa ku yiraahdaa ugu dhiirigelinaynaa. sidoo kale halkaas waxaa ka hadlay Cabdiraxiin Sheekh Idriis oo ka mid ah macallimiinta dugsiga xanaanada carruurta Riyaal Saalixiin, isagoo sheegay sida wanaagsan ay u tarbiyadaan kana warbixiyay qaabka ugu habboon ee ay wax u baraan carruurta. oo haddana farjira waxaan wax ku barnaa cunuga haddii wax u sheegtid oo si wanaag u sheegtid aad u naseexaysid carruurtu waxay u soo qaadasho og yihiin dadka waaweyn oo kale isku la mid maaha sida u fududaa wax u sheegtid ay wax ku qaataan dadka waaweyn iyagana ka fudud wax la baro marka fursadaas ayaan ka faa'iideysan. sidoo kale waxaa halkaas ka hadashay Amaal Ismaaciil Cali oo ka mid ahayd maamulka iyo macallimiinta isla markaana ahayd aasaaska iyo fikirka dugsigan xanaanada carruurta Riyaal Saalixiin. intaas kadib xanaanada waxay soo martay Riyaal Saalixiin maraaxil badan oo kala duwan. hadda waxay taagan tahay alxamdulillaah heer aan soo saarnay dufcadii koowaad ee farta baratay inkastoo weli ay wax noogu harsan dufcadaani oo ka koobaneed 11 cunug 9 wiil iyo 2 gabdhood. intaas kadib xanaanadu waxay qaadataa 14 jir ilaa 4 jir 4 jir ilaa 14 jir. ilmaha markay 4 jiraan ilaa sanadka 7 waxay ku jiraan qaybta xanaanada markay ka gudbaan waxay leedahay Riyaal Saalixiin qayb dugsi hoose dhexe qaybta hoose dhexe ee u gudbayaan duruustooda ka soo wadaan si hadhow markay madaaris kala tagaan oo cunugii u noqdo cunug bees walba ka dhisan shareeca haddii la dhaho maadi haddii la dhaho dhinac walba ardaydeena loogula tartamay dhinacyada kaleeto. ugu dambeyn carruurtii wax ka baratay halkaasi ee qalin jabisa ayaa waxay ku soo bandhigeen casharadii diiniga ahayd ee la baray muddadii sanadka ahayd ee halkan wax ka baranayeen iyagoo maanta qalin jabiyay carruurtaasi. dugsigan xanaanada carruurta Riyaal Saalixiin ayaa waxa uu furan yahay muddo kooban isagoo markaasi ku tallaabsaday guulo horumar leh muddadii sanadka ahayd ee uu furnaa, isagoo soo saaray ardad aad u da'yar isla markaana da'deedu u dhaxayso ilaa 3 iyo 6 sano kuwaasi oo aad u xafiday xifdinta Quraanka Kariimka ah. Xasan Maxamed Cali Xasan Anteena SBS Muqdisho.